Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelka Somali Share Education Network fadlan hadda taa qof nagu cusub channelka subscribe saar sidoo kale gambalaalkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaalada in videogan waxaan ku qaadanaynaa qaabka aan u dir lahayn email طبعا dirista emailka waa very important hadday ahaa lahayd email aad u diraysid asxaabtaada ama familygaaga ama hadduu ahaan lahaa inaad ku dirsatid codsigaas aad u diraysid jaamacad ama in shaqo aad ku raadinaysid so yaa idinku dheereenin ugu horeyn waxaan soo kicinaynaa browserka markaad soo kicisid qaybtan sare url-ka ayaa waxaad ku qoraysaa gmail.com ayaa leedahay gmail.com markaad dhahdid searching ayaa u diraysaa saan arkayna automatically waxaa noo soo furmay gmailkeena sababtoo usoo furmana waxay tahay waxaa ku save garaysnaa passwordka iyo gmailkaba marka in maadaama hadeertaan oo igu save garaysan yahay in case haddii aad u baahatid inaad halkan imaatid waxaa qasab kuga ah in aad gmailkaaga soo furatid in طبعا haddii aadan haysanin gmail account waxaa jiro in video aan hore u duubay qaabka gmail account loo sameysado so mar alla markii halkan uu ku keenana waxaa riixaysa meeshan ay ku qoran tahay compose markaad soo riixdid waxaa kusoo furmaya qaanada cusub meeshaan ugu sareysa waxaa loogu talagalay inaad ku qortid emailka qofka aad u diraysid sidoo kale subjectiga mawduuca aad ka hadlaysid subject markaad ku qortidna halkan waxaa loogu talagalay fariintaada inaad ku gudbistid ugu horeyn halkan waxaan ku qoraynaa emailka aan u baahannahay inaan fariinta aan u dirno okay emailka markaan ku qortid sidoo kale waxaa fiican subjectiga inaad iska sii qoratid waxaad leedahay for example codsi shaqo ayaa leedahay kadib codsigaaga ayaa halkan ku qoranaysaa mar markii aad warbixinta aad rabid halkan aad ku qortidna kadib waxaad samayn kartaa in aad file aad kusoo dirsatid hadduu ahaan lahaa filekaas in id ama sawir ama passportkaaga ama cv-gaaga marka si aan halkan aan ugu soo darsano for example cv-geena waxaan riixaynaa in file attach ayaan leenahay file attach markaad dhahdid kadib waxaad raadinaysaa cv-ga meesha uu ku yaalo mar alla markii aad meesha aad tagdidna asiga ayaa select garayna markaad select garaysidna kadib waxaad leedahay open markaad dhahdid automatically waxaa lasoo upload garayn doonaa in waxaad soo dooratay marka hadeertan saad arkaysid in documentigeena waa lasoo upload gareeyay kadib waxaan leenahay send ayaan leenahay send markaan dhahno fariinteena way baxday so si aan u fiirino inay fariinteena baxday in kale waxaad riixaysaa meeshan ku qoran tahay send markaad dhahdid waxaad arkaysaa fariimaha aad dirtay fariinta hadeertan ugu dambeysay waxay ahayd midan kore waxaana ku qoran in codsi shaqo waa ciwaankii sidoo kale warbixinta aan kusii darnay in fariinteena halkan ay ka muuqanaysaa sidoo kale fileka aad soo upload garaysay ama attachka aad ku samaysana hoos ayuu kasoo muuqan doonaa so micnaheedu waxay tahay fariintan hadeertan aan dirnay qofka aan u dirnay way gaartay waana ku maasan tahay daawashadaada videogeena halkan ayuu ka eg yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu